بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرتي إلهي باب محضلة سومالنا وندعو عيننا إلههم إنهم مذايوه يا سومالنا ودعو عيننا أو شرفت هذه السؤالية يا نودعو عيننا ونودعو عيننا إن شاء الله تعالى. شركة لو قبتيك اسمعيو شن نن أو مدحوينيا لو الشيء أيها يسوتي shirkaasi madaxweynayaasha tagay waxa weeye shan dawladood oo dawladda Soomaaliya jamhuuriyadda la oran jiray laga dhex sameeyay ayay shantaan ka socdaan waa Puntland waxa weeyaan Galmudug waxa weeyaan Hirshabeelle waa maartayana Koonfur Galbeed Baydhabo iyo Jubbaland shanta nin ee halkaas ku tagay dawladaha ay hogaaminayaan runtii waxay inay dawladda Soomaaliya dhisaan bay ahayd laakiin hadda sidee u socoto dawladda Soomaaliya inay dhisanto ragga lagula dagaalamaya ee burburinaya ee maanta inay dawladda Soomaaliya ka dhalato hor jooga lana ictimaadayay shantan nin baa ugu horeeya shanta rejiim ee dawladda lagu sheego aanu shanta rejiim waxaan arkayaa ee dawladood ee goboleedyada la yiraahdo shan qabiilo oo la huwiyay magac dawladeed la huwiyay ayaa horta aan warka waa shan qabiilo oo miduba maartay magacaanteedii ay maartay dawlad ku samaysatay dawladna magacaan loo bixiyay dawladda Soomaaliya dawladda ahayd dhulkaasi inka dawladda lagu sheegayay goboladii Soomaaliya waaweynaa bay ka mid ahaayeen haddii ay maartay hadda shirka ay shireeni waxa uu gabagabeynayaa ama burburinayaa ididila Soomaaliya ay 720 sanadood u sabraysay oo soo cagajiidaysay oo hadda xamar ka iftiinta ayaa lagu burburinayaa dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu burburinayaa haddii la isweydiiyo nimankan xagee ku tiirsan yihiin ayay ka socdaan nimankan laba jihay aniga kulka ra'yigayga anu saan fahamsanahay laba jiho ayay ka socdaan jiha waxa weeyaan wadamada dariska inala ah oo aan ogolayn sidoo cadeeyay ninkii loo jiray maartay Arab Moy ninkii loo jiray ee Kenya Soomaaliya madaxweynaha cadeeyay jaamacadda Harvard la yiraahdo oo ka cadeeyay yiri Soomaali inay dawladdan u dhalato ma ogolaanayna anaga Ethiopia harayb u yiri tii ayaa socota tiibay nimankan fulinayaan dawladaha igad la yiraahdo oo ka dhantay Djibouti iyo maxay Suudaan waa dawlada Kristan wada ah aan ogolayn Soomaaliya inay dawladdan oo muslim sheegato oo geeska Afrika ka dhalato aan rabin weeyaan igad marka waa number 1 oo dawladaha jaarka ay u horeeyaan ninka maartay jimciyadda qurumaha dhexaysa soo diratay ee la yiraahdo High Commissioner Soomaaliya xukuma ee badana Ingiriiska isna waxa weeyaan waa kamid Mareykanka iyo Ingiriiska iyo reer galbeedkuna baaga dambe uga ciyaarayaan halka Soomaali kolka halka aan ka bilownay jaarkeena ilaa igaad ilaa iyo Mareykan iyo Ingiriiska Soomaali rajo uma jirto dawladna ka soo noqoto waxa weey haddii aan doonayno Soomaaliya inaan madaxa adida ku biirno anu Sheekh Xasan Dayaal leeyahay ninka maartay wadaadka siyaasiga ah ee mutacallimka gaboobay baan ahay dawladna waxba kama rabo laakiin Soomaali waxaan leeyahay nimanka maanta saladaha sita ee la tagay Abu Dhabi ee ku soo qaadanay ee la danta waxaan ka shaqeynaa Galmudug danta Puntland danta maartay Jubbaland danta Bayland danta maxay Hirshabeelle danta Soomaaliya dadka Soomaaliya ka shaqeynaa waa ninka cadaada iyo xamar kala gooyay ee diyaaradii ka gooyay ee maartay ragii maartay ka tirsanaa gobolka la yiraahdo Galmudug ee baarlamaanka federaalka ku jiray ku xiraya hadda kolkay ka soo degaan cadaado xiraya ee jeerka u gurayay danta Soomaalida wada maxay tahay Soomaaliya meel kastaba joog aniga Ilaahay hortii waxaan leeyahay dad muslimiin nahay laba magac baa la rabaa wadankan in laga tirtiro labada magacna waxa weeye mid waa magaca Soomaali la yiraahdo in la tirtiro magaca kalena waa Muslim labada hadday israacaana way jiritaan damo yeelana ma jirto aan waxa idinku soo gabagabeynayaa
la yiraahdo la qayliyo musiibo markay dhacdo waa la qayliyaa shucuubtu ha iska hor joogsato nimanka afku dhilayaasha saladaha sita ee maanta maarta wadanka iibinaya hal la joojo anaan maarta aray idan waxay badanaysan taana ma jirto walaa dawlad walaa cid kale waxay badanaysan ma jirto ana Soomaali baan ahay Soomaalina maanta halka lagu wadaay waxa weeyaan iilka in la dhigo dib dambe aan arag ilaahay dawladda xamar jirta ha quweeyo kuwa ka soo horjeedana Allah baabiyo